kulankan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda cusub mudane Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay hotelka City Palace ee magaalada Muqdisho. ugu horreyntii kulanka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah bulshadii ka qayb gashay iyagoo soo dhaweeyay magacaabista golaha wasiirada ee uu soo dhisay ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed waxaana ay ka codsadeen golaha baarlamaanka inay ansixiyaan wasiirada cusub. waxaanu leenahay rabitaankeena ku shaqeeyaa dadka wakiilka laga hogaamiyo ay kala tago waxaan leenahay waa cadaalad inta waxaa laga rabayaa meel abaara waxaan la rabaa dalka guday waxaan leenahay marka ay loo rogsan jiilaalka ee meesha lagu ka dawada xafudda geediga ayaa hadda ayagana sharaf ay u tahay annaguna waan xaqiijinay inay astaahilaan inay wakiil naga ahaadaan ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli waxaan leeyahay waa nasiibteen waana ku mahadsantihiin xulashada ama sidaad noogu soo xusheen wasiir dowlaha oo aan maanta aan la isleenahay waa idin kaafinayaa waana ku qanacsannahay waxaan kaloo halkan rabaa inaan codsi u diro sida dadkii ku horeeyay ay sameeyeen baarlamaanka sharafta leh oo aan rabo inay baasgareeyaan ama ay ansixiyaan wasiirada dhammaantooda 55 wasiir oo aan leeyahay runtii waxay yihiin dadkii ugu mudnaa ugu hufnaa waana taageersannahay waana soo dhawaynaynaa. ugu dambeyntii wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda mudane Cabdullaahi Maxamed Nuur oo goobta hadal ka jeediyay ayaa kaga mahadceliyay dadkii ka soo qayb galay kulanka lagu taageerayay xukuumadda cusub ee dalka. waxaan idinkaga mahadcelinayaa runtii xafladan ama soo dhaweyntan aadka u quruxda badan oo aad u samayseen xukuumadda cusub oo la soo magacaabay oo aan ka mid ka ahay. waxaan si gaar ah idinkaga mahadcelinayaa inaad noqoteen dadkii ugu horreeyey oo xaflad sidaan oo kale oo soo dhaweyn u sameeyey xukuumadda cusub oo la soo magacaabay. waxaan rajaynayaa in aynan noqon doonin markii ugu dambeysay oo aad u samayseen soo dhaweyn iyo taageero mid aan lamida ama ka ballaaran. sidoo kale waxaan idinka rajaynayaa in maanta aniga oo quraha idinkala soo qayb galay inaad samayn doontaan xaflad ama munaasabad sidan oo kale ah oo ay nagala soo qayb galaan xubnaha xukuumadda cusub intooda badan ama dhammaantoodba maadaama aad tihiin sida aad sheegteenba gogashii dowladda Soomaaliyeed. dabcan anigoo kale ima furlayn oon ahayn inaan idin mahadceliyo mar labaad iyo mar saddexaad waan idin mahadcelinayaa anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda cusub ee lasoo magacaabo. tan iyo markii habeen hore ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada waxaa guud ahaan dalka gudihiisa iyo dibaddaba ka dhacay kulamo lagu taageerayay xukuumadda cusub ee dalka. Cabdiweli Xasan SNTV Muqdisho.